Soomaalida xashish ku wareejiyay farmaajo iyo Soomaalida farmaajo ka tagayo waa kala laba. Hay ugu eedeyn dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Farmaajo ayaa ku qoray hadalkan jariirada Foreign Policy. Waxa waqtiga ka dhamaaday February 8, 2021 oo hadda laga joogo 3 bilood. 4 sano oo madaxweynaha ahaa marka laga tago 3 bilood ee la soo dhaafay muxuu ku qaban karay hadduu yahay hogaamiye raba dalka inay doorasho ka dhacdo. Jawaab ku salaysan malo ama qiyaas uma baahna. 3 bilood muxuu ku qabtay madaxweynihii isaga ka horreeyay ayaa jawaab u ah. Xasan Sheekh waxa uu madaxweynaadkiisu ku ekaa September 10, 2016. 3 bil ee xigtay waxaa la doortay 275 xubnood oo doorashadoodu ay ka qayb galeen 14,025 Soomaali ku kala nool gobolada dalka. sidoo kale waxaa dhismay aqalka sare oo aan dalka ka jirin 54 sanatar oo ka kooban yahay ayaa waxaa soo doortay baarlamaanada maamul goboleedyada dalka. December 2016 ayaa gabi ahaantoodna la isugu keenay Muqdisho oo lagu dhaariyay 3 bilood ee farmaajo sharci darrada ku jooga filla Soomaaliya waxa uu qaaday tallaabooyin kursi jacaylka uu hagayay kuwaas oo ay ka dhasheen qax qabyaalad qaybsanaan ku timid ciidanka qaranka iyo burbur dhaqaale. warbaahinta dunida iyo tan gudahaba waxa ay tabiyeen dhacdooyin foolxun oo ka dhashay kursi jacayl iyo kalitalisnimada. demanding Mohamed Abdullahi Mohamed's resignation oo sababay dhimasho iyo dhaawac. qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho xiisad colaadeed la December 2016 wararka warbaahinta tabinaysa waxay ahaayeen doorashooyinka sida nabadda uga qabsoomay gobolada dalka. xildhibaanada la soo doortay hambaliyadooda ayaa socotay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ugu hambalyeeyay gudoomiye ku-xigeenada ku guuleystay baarlamaanka maanta. Muqdisho waxa ku soo qulqulayay wafuud caalami ah oo doonayay inay marqaatiyaal ka noqdaan dimuqraadiyadda ka hana qaaday Soomaaliya. Hadda Soomaalidu waa lagu kala dhex jiraa. ergeyga Qatar ayaa qof iyo koox ula kulmaya sida inaanay dalka dawlad ka jirin. Afrika waxay soo magacawday ergey ku awooda kan qaramada midoobay kaas oo la siiyay awood uu ku adeegsan karo ciidanka AMISOM. arrimahan oo dhan ayaa ah natiijada siyaasad qariska tuura oo farmaajo dalka ku hagayay 4 sano. ujeedka kaliya uu lahaa ayaa ahaa in xukunku uu haysto qiimo kasta oo ugu kacdo iyo qar kasta uu qaranku ka dhaco. leeguma aqoonin weligay mar ku dhig inaan noqdo iyo macaanka inaan noqdo mana ihi weli hadda maanta Soomaha weli aniga nidaamkii dastuurkan ku taaganahay challenge-ga inaan xalliyo rabana waa iga sii hor muuqdaayo qabyo qofkeeda dhameystir bilaash uma badhin wixii qabyada ahayo cawado dhan la su'aala cawado dhan su'aalaha la isku soo cidmuga isku soo wada celcelisay waa qortay kulli qabyadii iyo dhameystirkeedii ka hadlayaan wax cusub kama hadlayaan marka niyaa weli waa ii muuqataa inaan meesha ku noqdo wixii dhameystiro oo hagaajiyaan rabaa haddii may inaga joog la Iiraan xarka koos ma ay anoo madaxweynahan ka joogay anoo madaxweynahan inaan ka joogo ii saaran tahay.